رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 بسم الله الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة لما أغلق وخاتمه لما سبق الناصر حق للحق ويهديك إلى طريق المستقيم وعلى آله حق قدره بمقدار العظيم. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إيانا وإياكم من الفتن وضلالات. ما بعد، أخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولالكين waxaan idin leeyahay insha allah biidni illaahi tacaala waxaynu kusoo guda jirnay fadaa'ilu ramadaan baynu kusoo jirnay. waxaynu soo qaadanay sabab limakfirati dunuub inay ka mid tahay asbaabaha ay dembigaaga hore lagu dhaafo, iyadoon xadiiskeediina hore aynu soo sharaxnay soona qaadanay. wax kalena soo qaadanay fadligeeda inay bisha ramadaan ay ka mid tahay asbaabta ay in maaragtay dembigaaga waa thawaabu bikayri xisaab, in si maaragtay aan alla subxaanahu wa tacaala xisaab la-aan ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku raacaynayo, oo yacni malaa'ig iyo insaan iyo malaa'igtoona aanay kugu markhaati furayn, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa lagaga markhaati furayo ayaynu soo qaadanay. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isku tiiriyey inuu soonka isagu iska leeyahay, isaguna uu ka abaalmarinayo ajarkeeda iyo xasanaadkeedana uu addoomihiisa u qorayo. maanta haddaba waxaynu qaadan doonaa oo ka mid ah min fadaa'il ramadaan. waxaa ka mid ah adiga maanta tusaale ahaan waad sooman tahay. culimmadu waxay tiraahdaa waxa weeyaan waa raayixatu lfam saa'im adyabu cinda allahi min riix lmisk. waxa weeyaan fadaa'isha ramadaanta waxaa ka mid ah qofkii soomanaa ee ilaahay dartii afkiisa u xidhay, ee xumaan ka xidhay, ee xan ka xidhay, ee maaragtay cunto ka xidhay, ee sharaab ka xidhay, ee si walba maaragtay xubnihiisa taranka u xidhay, ee indhihiisa u laabay, ee farjigiisa xifdiyey. intaasoo dhan markuu sameeyey ayuu alla subxaanahu wa tacaala agtiisa ayaa looga jacayl badan yahay afkiisa riixada ka soo baxaysa iyo sankiisa riixada ka soo baxaysa. yacni waa shay ka qayiran riixadii markuu caadiga ahaa uu qofka aanu soomanayn cuntada uu cuni jiray, maadaama uu biyo cabi jiray, cunto cuni jiray, riixada afkiisa ka soo baxday sankiisa ka soo baxda ay caadi ahayd. riixadan qofka markuu soomaya way ka duwan tahay. waxaa laga yaabaa dadku inay karaahiyeystaan oo dhibsadaan riixadaas ama urtaas ay markaa hawada kaa soo baxaysa jirka sankaaga iyo afkaa ka soo baxaysa inay markaa dhibsadaan baa laga yaabaa. laakiin fadliga ramadaanta waxaa ka mid ah waxa weeyaan waa raa'ixatu min fami saa'im, qofkii soomanaa afkiisa hawada ka soo baxaysay ama riixada ka soo baxaysay adyabu cinda allahi min riix lmisk. alla subxaanahu wa tacaala agtiisa in ay uga udgoon badan tahay
miskiga maaragtay cadarka la yiraahdo ama uunsiga la yiraahdo kaasoo ay culimada badankooda ku tilmaamaan inay ahli janno inay isticmaalaan miskigan Allah subhanahu wa ta'ala in fara badan quraankiisa ku tilmaamay rasuulku wuxuu markaa leeyahay alayhi salaatu wasalaam soo ka hadlaya arrinkaas walladii nafsu muhammadun biyadihi ilaaha nafta nabi maxamed gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee la khaluuful fami saa'im qofkaas sooman afkiisa adyabu cinda allahi min riixil misk ilaahay agtiisa wuxuu uga caraf badan yahay miskiga geedka la yiraahdo ama uunsiga la yiraahdo ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala agtiisa uga udgoon badan yahay adiga maanta waxaa laga yaabaa ummad kale inala yaabtay tiraahdo war ninkan waa maxay riixada ka soo baxaysa ama qofkan riixada ka soo baxaysa maxay tahay laakiin ilaahay agtiisa laga jecel yahay subxaanahu wa ta'ala waxa kale meesha ku jirta oo aad markaa tahay inta aad soomanayd ama cadaya ama cadayane ama maartay waxa noqotaa mid si walba muxuu haayay ay riixadiisa afkiisa u ilaaliya haddana wixii afka ka soo baxay ilaahay agtiisa subxaanahu wa ta'ala wuu xisaabsan tahay oo ilaahay agtiisa waa looga kalgacayl badan yahay waxa kale markaa maalinta yawmal qiyaama imanaya soomka laftigiisii isaga laftigiisa balada xadiiskan kale u fiirso lisaa'ima farxataan ay culimadu yiraahdeen qofka sooman laba jeer ayuu farxaa qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed baa inoo cadeeyay wuxuu yiri walisaa'imi qofkii soomana farxataan laba farxadood baa u sugnaatay uu leeyahay oo farxadda ugu horeysa waa maxay yafraxuhumaa idaa aftara mar alla marka afurayana wuu farxayaa oo farxa bifitrihi wuxuu ku afurayaa wuxuu markaa ku farxayaa waqtigii uu soo gaaray ee ilaahay cibaadadiisa uu ku soo simay ee ahayd waqtigii ay xalaasha u noqonaysay cuntadu ee afurka markaasoo ayuu farxayaa markuu biyihii qaboobaa usoo dhawaado timirtii usoo dhawaado cuntadii usoo dhawaado ayaa uu farxayaa marka labaad uu farxayaa wuxuu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waidaa laqiya rabbahu farxa bisawmihi mar alla markuu ilaahay la kulmana yowmal qiyaamaha ee qiyaamaha la soo istaajiyo ee ilaahay uu la kulmo wuxuu qofkaasi ku farxayaa soomkiisii oo soomka laftigiisii waa inoo iman doonaaye ayaa xitaa u doodi doona maalinta yowmal qiyaamaha maxaynu ka faa'iidaysanay meeshaan laba jeer baad faraxday labada jeer aad faraxdayna midna waa farxadda yar oo aad ku farxayso inuu haraadkii kaa jabo gaajadii kaa baado jirkii kululaaday uu qaboobo cibaadadiina inaad gudatay aad ku faraxday markana mar labaad baad farxaysaayo waa soomka bal shaqo aad shaqayso oo adiga waliba kuu gaar ahayd oo kuu qarsoonayd oo adiga ilaahay idinka dhexaysay oo hadda bal ka waran abaalkeeda lagaaga dhigayo janno oo isagiina uu shakhsi bilo aadmi oo kale intuu noqdo adigu kuu dooday uu leeyahay ilaahay oo adoonkan shahawaadkiisii ayaan ka kaxayay oo aniga darteed uga tagay oo soomhaanta adigoo amartay uga tagay oo akalkiisii iyo shurbigiisii uu ilaahay markaa uu ka tagay ilaahay aniga cisigeygii sharaftaada siisay ilaahay ugu dambi dhaaf oo ilaahay maartay shafaacada iga aqbal oo ilaahay ugu naxariiso jannada ku geey markaasna waxaad u malaynaysaa farxadaada intee laagtay marka ilaahay naga dhigo kuwii ku farxa ee markaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku abaalmariyo maanta yawmal qiyaamaha soomka ay u soomeen allah dartii oo ikhlaas iyo mutaabaca ah waxa kale oo bal hadda meesha fiirsaad iyadana fadaa'il ramadaan waxa kaloo ka mid ah as-sawmu junna wiqaayatu min an-naar soomku faldigiisa waxa ka mid ah waa gaashaan ama waa dhufays aad ka gelayso naarta ama albaabada naarta walciyaadu billaah ama uu kaa ilaalinayo naarta weeye waxay noo cadeynaya hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam walisiyaamu junnatun warsoonku waa gaashaan wallaahi fii kulli laylatin minhu wallaahi waxaa dhaaranaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy fii kulli laylatin habeen kasta minhu oo ka mid ah ramadaanta ka mid ah oo soomka bisha ramadaan ka mid ah
ictiqaa'u min annaar, ilaahay subxaanahu watacaala addoomo ayuu ka xoreeyaa naarta. waa fadliga baldoo fiirso. bilaha kale aad arkayso iyada laftigeedii si gaara mid walba cibaadadeeda gaar u tahay, laakiin iyadu fadliga ay sii dheertay waxa weeye habeen kasta 30 habeen hadday tahay, intaas oo 30 habeenba intaasoo kun oo qof ayaa naarta laga badbaadinayaa oo ilaahay jannadiisa ku geynaya insha Allah. hadday 29 tahay intaanteedi weeye. marka waxa weeye waxaa meeshaana aynu ka fahmaynaa, aynu ka faa'iidaysanaynaa inaanay marnaba aanay ahayn ciyaar fadliga ramadaanta ay leedahay. markaas lilaahi cinda kulli fadrin ictiqaa'u, alla subxaanahu watacaala inuu waqtiga afurka waa xadiis kale laftigiisu oo rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam. xadiiska hore waxaa soo saaray sheekhaan waa Bukhaari iyo Muslim. xadiiska labaad waxaa soo saaray waa Bukhaari iyo Muslim. xadiiska saddexaad waxaa soo saaray waa Bukhaari iyo Muslim. xadiiskan kale ee inta yar ugu hooseysa lilaahi cinda kulli fadrin ictiqaa'u waxaa soo saaray wuxuu leeyahay qaala mundir wuxuu leeyahay isnaaduhu in lagu tiiriyo laa baasa bihi, dhib kuma jiro, oo markaas xadiiskaa hore la raaciyaa dhib ma laha buu leeyahay. waxaanu ku jiraa saxiixu tarqiib wa tarhiib boga 987 boga 987 ayaad ka eegi kartaa insha Allah biidni illaahi tacaala. ilaahay subxaanahu watacaala ha naga dhigo kuwa naarta ilaahay ka xoreeyo, kuwa ilaahay badbaadiyo, kuwii Allah subxaanahu watacaala sirran wacalaaniya ilaahay uga cabsada Allah ha naga dhigo, kuwii isku dardaarma taqwada ilaahay subxaanahu watacaala Allah ha naga dhigo. naftayda iyo naftiinaba waxaan leeyahay aynu ka wada baqano Allah subxaanahu watacaala. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala fattaqullaha ma istadactum. Allah subxaanahu watacaala intaan awoodna aynu ka cabsanno, inta kale ee badanna aan toobada iyo istighfaarta fara badina insha Allah biidni tacaala. shay kastoon hagaajiyeyna Allah subxaanahu watacaala ayay ka sugnaatay, shay kastoon haleeyeyna naftayda iyo shaydaan bay ka sugnaatay. shay kasta oo Nabi Maxamed iyo ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka sugnaadayna waa intaan hagaajiyey weeye. intaan kharibayna ilaahay subxaanahu watacaala dambi dhaafkeeda Allah subxaanahu watacaala ha inoogu deeqo. inteena dhegaysanaysay inteena akhrisayna miisaanka xasanaadka Allah u wada saaro. ilaahay subxaanahu watacaala toobada Allah nagu dilo, toobada Allah nagu soo saaro. ilaahay waxaan weydiisanaynaa khaatimo wanaagsan baan ilaahay weydiisanaynaa dhammaanteen. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك ربنا وتعالى جل ولا إله غيرك. استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.